kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada kalmoy media iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey maamulka Somaliland oo ka hadlay xiisada ka taagan gobolka Awdal si la mid ah ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland ayaa loo soo dhaqaajiyay dhinaca gobolka Sanaag gaar ahaan waqdariya iyo shida ciidamada difaaca deegaanka ayaa heegankii ugu sarreeyay galay waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey xiisada halkaasi ka taagan dhinaca maamulka Galmudug qorqor ayaa qaaday tallaabooyin culus mid ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Galmudug ayaana ka hadlay wararka sheegaya in si la mid ah wixii koonfur galbeed ka dhacay ay suuragal tahay inay Galmudug ka dhacaan isaga oo si adag markaasi ugu jawaabay hadallada warbaahinta la isla dhaxmarayo qodobadaas ayaa daawad doontaa iyo wixii kale ee soo kordha inta tabintan aynu ku guda jirno soo dhawowda wadaadeen ay booqshadaadii ugu horreysay kalmoy media nagu soo biira calaamada subscribe-ka noo taaba muuqaalkan like gare qaybta faallada ee commentigana aragtidaada ku dhiibo wahagaag muddooyinkii la soo dhaafay soo la socotaan gobolada Sanaag iyo sidoo kale Awdal waxa ka taagneed xiisado colaadeed aad u xooggan gobolka Sanaag waxa isku hayay ciidamada difaaca deegaanka iyo sidoo kale maleeshiyada dhinaca Somaliland ka soo jeeda oo taageero ka helaya ciidamada maamulka Somaliland xiisada ayaa marka ka dambaysa waxay ahayd mid sii kordhisay isla markaana soo tareysay labada dhinac ayaana waxa mar walba ay sameynayeen tallaabooyin u muuqda inay u sii socdaan dhinaca dagaal ballaaran oo aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono maamulka Somaliland ayaa ciidamadii ugu badnaa waxa uu soo diray dhinaca gobolka Sanaag waxayna soo gaareen sida xogaha ay tilmaamayaan magaalada Cerigaabe ee xarunta gobolka Sanaag iyadoo la filayo in loo sii dhaqaajiyo furimaha hore ee dagaalka ee deegaanada waqdariya shidan iyo sidoo kale Yube oo ay gacanta ku hayaan ciidamada difaaca deegaanka ee dirarka oo dagaal adag markaasi kula galay deegaanadaasi maalmihii ugu dambeeyay maamulka Somaliland ciidamadiisa iyo maleeshiyadkii ay taageerayeen ciidamada difaaca deegaanka ayaa waxay dhankooda tilmaameen in heegankii ugu sarreeyay ay ku jiraan isla markaana si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka soconaya deegaanada waqdariya shidan iyo sidoo kale Yube waxayna tilmaameen inay diyaar u yihiin inay ka hortagaan isku day kasta oo maamulka Somaliland uu doonayo inuu ku soo weeraro deegaanada waqdariya shidan iyo sidoo kale Yube oo ay tilmaameen inay yihiin deegaano ay iyagu gacanta ku hayaan isla markaana Somaliland aysan ka aqbali doonin inay marnaba gacanta ay ku dhigto deegaanadaasi taliyaha ciidamada militariga maamulka Somaliland ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay markaasi xiisada gobolka Awdal ka taagan waxaana tilmaamay inaan la aqbali karin xiisadaasi ugu baaqay dhinacyada labada beelood ee halkaasi ku dagaalamayeen si degdeg ah colaadda ay u joojiyaan haddii kale ciidamada militariga Somaliland ay tallaabo adag qaadi doonaan taliyaha ciidamada militariga Somaliland ayaa waxa uu sheegay in halkaasi ku sugan yahay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland isla markaana uu ka wado kulamo xasaasi ah oo la doonayo in lagu joojiyo colaadda halkaasi ka taagan dhinaca gobolka Sanaag suldaanka guud ee beesha Warsangeli Suldaan Siciid ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho saraakiisha ciidamada difaaca deegaanka iyo waxgaradka ku sugan deegaanada waqdariya shidan iyo sidoo kale Yube uu kala hadlo xaaladda guud ee ammaanka iyo sida markaasi loo difaaci lahaa deegaanadaas Suldaan Siciid ayaa u muuqday in gebi ahaanba ay kala furteen maamulka Somaliland isla markaana uu meesha ka baxay heshiiskii nabadda ay Cerigaabe hore ugu gaareen madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale suldaanka guud ee gobolka Sanaag Suldaan Siciid waxaana la filayaa in kulankooda ee markaasi Suldaan Siciid uu la yeelanayo saacadaha soo aadan saraakiisha ciidamada difaaca deegaanka ee ku sugan shidan iyo waqdariya in markaasi lagu go'aamiyo si wada jira in loo difaaco deegaanada ay gacanta ku hayaan waqtigan loona diyaar garooba sidii loo xorayn lahaa magaalada Cerigaabe iyo deegaanada kale ee Somaliland kaga sugan tahay gobolka Sanaag haddaba suuragal ma tahay in ciidamada difaaca deegaanka ay gacanta ku dhigaan magaalada Cerigaabe iyo deegaanada kale ee gobolka Sanaag ee ay markaasi gacanta ku hayso ciidamada maamulka Somaliland aragtidaada qaybta faallada ku dhiibo dhinaca gobolka Awdal taliyaha ciidamada militariga Somaliland oo markaasi si faahfaahsan uga hadlay xiisada halkaasi ka taagan iyo sida muhiimka ay u tahay in la joojiyo colaadda ka taagan deegaanada markaasi Somaliland waxa uu hadalkiisa uu markaa ku sheegay sida tan awaamiirta aanu soo saarnay haddaanu nahay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee ka howlgala halka waxaynu joognaa waxa weeyaan waa taliskii saldhigga koowaad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee Geerisa gobolada Salel iyo Awdal hawsha shaqaaqadii ka dhacday ee labada beelood ee walaalaha wafdigii cuslaaya halkan u yimi ee arrimaha nabadgelyada ka howlgalay ee uu hogaaminayay ka koowaad madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ku sugan imika magaalada madaxda Boorame
gobolka awdal iyo wafdigii kale ee wasiirka gaashaandhigu hogaaminayay. Si guud waxaan halkan idiin sheegayaa inaan idiin sheego xaaladda guud ee gobolada awdal iyo salal ay ku sugan yihiin iminka, baaqa nabadeed iyo awaamiirta aanu soo saarnay haddaanu nahay ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee ka howlgala halka. haddaan in yar idiin sheego xaaladda guud ee nabadgelyada gobolada salal iyo awdal. si guud shaqaaqadii ka bacdi xaaladda guud waa nabadgelyo. wax dhibaato imika taaganna ma jiro. wuu jira isku dhacyadii baryahanba ka dhacdhacayay muxuu ahaye gobolada. taasi laakiin kamay bixin, macnaheedu maaha sida dadka qaar u fasishaan inay gobollo colaad iyo ammaan darro ay ka jirta ay tahay. isku socodka iyo ganacsiga iyo isku dhex noolaanshaha bulshada intuba si fiican bay u socdaan. taana waxa weeyaan waxa suurtageliyey bulshada halkan ku dhaqan iyo ciidamada ammaanka ee halkan gacanta ku haya oo si hawlkarnimo muxuu ahaye gacanta ugu haya. wixii intaa ka dambeeyey maalmihii dhaweed wax dhaceenna ciidamada qaranku waxay ka hawlgaleen meel kastoo joogaan qolooyinka jabhadaha ama islaynaya ee shaydaanku ka dhex adeegayo. arrintaana waxaan la wadaagaynaa baaq nabadeed marka koowaad oon la kulannay labada dhinacba si fiican oo gobonnimo leh. madax dhaqameedka iyo waayeelka labada muxuu ahaye bulshaba ay noola kulmeen, nala qaateen inay nabad nagala shaqaynayaan, ciidamada qaranka iyo wafdigaba ay kala shaqaynayaan nabaddaas. arrintaasna ay miidiyahana ka sii daayeen, muxuu ahaye golahana ka sheegeen, isla markaana ay ficilkeedii u bedeli doonaan inay inamadaa kala diraan, mid walba goobihiisa iyo meesha uu muxuu ahaye ka yimi ay ku celiyaan. waxaan kaloo soo jeedinayaa odayaasha iyo madax dhaqameedkii ballantaa qaaday inay oofiyaan. si guud ciidanka qaranku kadib qiimeyn uu ku sameeyey wuxuu soo saaray awaamiir kooban oo lagu xakamaynayo hawshaas. kow waxa ka ah inaanu jirin wax isku socda oo jabhadaha isku gurguraya. kow ciidanka qaranku meel kastuu joogo wuxuu amar ku haystaa jabhadda meel kale u guurto meeshoodii ka guurtay ilaa inta amar laga soo saarayo dambe in laga qaadayo qoriga, la xidhayo, baabuurka watana laga xaraynayo oon mar dambana loo soo celinayo. markaa guurguuris iyo isku socod horta waa dhammaaday. ta labaad wax qori weysita iyo gaari dul bannaan iyadana awaamiir horena waa ka soo baxday. imikana waa kii uun, kuwana waan ka qaadnay, kuwa dambana waa ka qaadi doonaa. taana tallaabada waxa weeyaan waa amar ka soo baxay waxa weeyaan taliska ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan si loo xakameeyo nabadda gobolkan, iyadana waxa weeyaan inaanay jirin. waa hagaag markanna dhinaca iyo sidoo kale galmudug waxaa maalmihii ugu dambeeyey kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay gacanta ku dhigtay maamulka koonfur galbeed soomaaliya kana faramuroojisay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo dib loogu doortay magaalada baydhabo, islamarkaana dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda ay si buuxda ula wareegeen guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee cabdicasiis maxamed xasan laftagareen horay ugu arrimin jiray ugu horreyso magaalada baydhabo. waxaa soo baxayay xogo iyo sidoo kale warbixinno warbaahinta si weyn loogu lafaguray oo ku aadan in dowladda federaalka soomaaliya ay qorsheynayso in howlgal la mid ah midkii galmudug aan idhaahdee koonfur galbeed meesha ay kaga saartay hoggaankeedii hore in ay ka fuliso galmudug inay suuragal tahay. galmudug waxa ay noqotay markaasi meesha ugu badan sida weyn markaasi loo hadalhayay kadib howlgalkii filla soomaaliya ee koonfur galbeed ee guulaystay in galmudug ay u jixaysan doonto. mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka galmudug gaar ahaan gudoomiyaha degmada dhuusamareeb oo maanta markaasi ka hadlayay kulan uu ka qaybgalay oo ka dhacay dhuusamareeb waxa uu sheegay inay si dhow ula socdaan wararka iyo sidoo kale hadalhaynta warbaahinta ka taagan ee ku aadan wixii baydhabo ka dhacay. waxa uu yidhi maalmahan dambe waxaa warbaahinta si weyn u haystay hadallo markaasi si weyn loola yaabo oo innaga xitaa markaasi la yaab nagu noqday. waxa uu yidhi kadib markii arrimo siyaasadeed oo cakiran ay ka dhaceen koonfur galbeed soomaaliya, maamulkii halkaasi ka jiray iyo dowladda federaalkana ay wada shaqayn waayeen, dowladdana ay ku guulaysatay inay meesha ka saarto maamulkii oo iyadu la wareegto baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed. waxay dadku inta badan markaasi ay tilmaamayeen in galmudug ay tahay meesha ku xigta ee tallaabada markaasi dowladda federaalka soomaaliya ay u qaadi doonto. mas-uulkan waxa uu yidhi innagu waxaan ku joognaa rabitaanka shacabkeenna, waxaana ku nimid ayuu yidhi rabitaanka shacabka reer galmudug.
cidna awood uma lahan ayuu yidhi inay faragelin nagu samayso isla markaana waxa ay doonto ay ka samayso ayuu yidhi deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxa uu yidhi waxay diyaar u tahay inay ka shaqayso horumarka nabadgelyada iyo sidoo kale dowladnimada Soomaaliya cidna markaasi uma daba fariisanayna ayuu yidhi arrimaheenna waxaana diyaar u nahay inaanu markasta ka shaqayno horumarka dowladnimada weli waxaa markaasi dadka inta badan ay rumaysan yihiin in dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca galmudug ay tallaabo u qaadi doonto madaxweyne Axmed Cabdikaariye Qorqor ayaa ilaa hadda markaasi aan warbaahinta ka soo muuqanin tan iyo howlgalkii koonfur galbeed ka dhacay dowladda ay fulisay waxaana dad badan is weydiinayaan inuu damacsan yahay qorshayaal kala duwan iyada oo markaasi suuragal ay tahay in maalmaha soo aadan uu ka dego treenka madaxweyne xasan sheekh maxamuud Axmed Cabdikaariye Qorqor ayaa dadku ku tilmaamaan inuu yahay siyaasi waaye aragga isla markaana qunyar socda si dhowna ula socda mowjadaha siyaasadeed iyo sidoo kale isdiidooyinka ku aadan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya galmudug marka la fiiriyo dad badan waxay ku tilmaameen inaysan suuragal ahayn sida gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb oo maanta hadlayna uu sheegay inay diyaar u yihiin in markasta ay isku duubnaadaan si wada jiraan uga hortagaan wax kasta oo caqabad ku ah dowladnimadooda waa kan gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb oo arrimahaasi ka hadlaya iyo guud ahaan xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jira sida galmudug markaasi ay diyaarka ugu tahay isla markaana ay ugu heelan tahay dowladnimada iyo dib u dhiska maalmahan waxa in halkaas dhigo waxaan rabaa inaan ku soo khatimo maalmahan waxa jiray dabayl siyaasadeed oo Soomaaliya ka dhex taagan gaar ahaan waliba markii Baydhabo iyo halkaas dawladda ay aaday oo maamulkii hore Baydhabo oo ka jiray dawladda intay wada shaqeey waayeen meesha uu ka baxay dad badan oo shayaadiin ahaa waxay nagu soo firdhiyeen waxaan oo kale galmudug aan ku xigta heblaaya ka dhacday saasa la yeelay tiimkan waxaan rabaa inaad ii sheego annagu meeshaan waa nimid rabitaanka shacabka naga ku joognaa haddaan nahay madaxda reer galmudug shacabka nagu hadday shaqada noo sii wadahaan waa wadaynaa hadday dhahaan qoladana idinka rooned kuwaana loo sii dhibaana anagu diyaara u nahay wax fawdaa laakiin qof noo soo wadaa huna ma jirto annaguna fawdo yeeli mayno waddankan amni iyo kala dambayn iyo isku xiraanshaha ka jira dhib hore uga soo daalno dadkaan aad arkaydaan oo kale waxaa laga yaabaa dad badan dhibku u macnaha u cusub yahay inay jirto dhib waa laga soo daalay waddankan dhib wuxuu ahaa horaan usoo aragnay dhib la'aan iyo isku xiraansho iyo wada shaqaysina horumarka iyo sharafta ay leedahay waa aragnay waa ka soo daalnay waxaan marka khibrad u leenahay hadda kadib waqti naga qaadi maayaan dadka marka waxaan leenahay rabi lahaa ama siyaasadda hungurigu ka hayo ama sidoo ifsaadka iska jecel meeshaan qofkii siyaasadda hunguri ka hayana waa la soo dhaweynahay si nabada waxa ku raadsado qofkii ifsaad wadana qofka yeela lama arkayo waqti iskaga soo luminin dadkuna waxaan rabnaa inay ogaadaan wax annagu aan haysano wax ku darisay rabaan maahane wax ka nusqaamad cidii keento inay soo keentay ay dhici karto inaan mid ka wada ahana loo baahan yahay marka aad iyo aad mahadsantihiin wahagaag waan filayaa in markaasi aad ka bogatay guud ahaan waxaa intaas aan ku soo gabagabeynaynaa wixii warar ah ee ku saabsanaa xiisadda ka taagan gobolka Sanaag iyo sidoo kale Somaliland oo ka hadashay coladaha gobolada Awdal iyo sidoo kale Sanaag dhaqdhaqaaqa halkaasi ka soconaya maamulka galmudug iyo sida markaasi uga falceliyay hadalhaynta warbaahinta ku aadan in howlgal la mid ah midkii koonfur galbeed ay dawladdu ka fulin doonto magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug si aad markasta u noqoto daawadaha hela xogaha iyo warbixinada aynu halkan ku baahino nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada ku xiran Kalmay Media muuqaalka like saar qaybta faallada aragtidaada ku dhiibo sida aad u aragto suurtagalnimada iyo sidoo kale in dawladdu ay howlgal ka fuliso galmudug xiisadda gobolka Sanaag ayaa ku guuleysan doona